السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaad casharkeena labaad ee ASP.NET ka kaasoo aan ku baran doono habka marka ugu horeysa loo bilaabo ASP.NET ka. Aniga waqti xaadirkan computerka wax ku install garaysan Visual Studio 13. Hadaba aad u sad casharkan la socoto waxa muhiim ah inaad Visual Studio ku shubato computerkaaga si aad ugu shubatana linkiga laga soo download garanayo Visual Studio web developer-ka ayaan soo dhigi doona video description-ka. Iminka aan soo kicino marka Visual Studio 13 si aan u guda galno casharkeena. Visual Studio marka uu saan ku soo baxo si aan u sameeyno website-keena waxaan tagnaa halkan file kadibna new ayaan dooranaa waxaan ka soo dooranaa website form kan new website ka marka uu soo noogu soo baxo xagga waxaan ku dooranaa luqadda aan ku develop gareynaa website-keena VB oo macnaheedu ah Visual Basic ama C# ayaan dooranaa oo ah marka luqadda ku develop gareynaysa halkan ka dooranaysa iminka waxaan dooranaa waqti xaadirkan C# oo aan doonayno website-keena ku develop gareyno xaggan sarena waxaan ku dooranaa .NET framework oo yeelanayo application-keenani inagoo ku daynaa forkan xaggan waxaad aragtaa sort by oo ah sidaad u habeynayso listigan ama sadigoo yaryaraynaya ama si medium ka soo dhigay kadib xaggan hoose hadii aynu eegno waxaad aragtaa inay waqti xaadirkan inoo dooran yahay file system oo macnaheedu waxa ku hoos jira saddex selection oo kala ah file system HTTP iyo FTP hadaba hadii aynu marka file system doorano local computer-keena ayaa waxa inoo sameeynaya folder isla markaana inoogu gurayo dhammaan contents ku koobnaa website-keena hadii aynu doorano HTTP domain-keena halkan galeyna kadibna ISS server-kii aynu ku develop gareynaa marka hadii aynu doorano marka FTP isagoo waxa nooga baahanay remote server macnaheedu server marka la yaalo inaan website-keena ku develop gareyno network hadaba in waqti xaadirkan waxaan ku deysanaa file system waxaan doonaynaa folder computer-keena inoogu sameeyo kadibna location-kan ku kaydinayna aynu dooranaa kadib waxaan dooranaa ASP.NET Lessons 2017 kadibna open byline location-ka markaan soo doorano halkan waxaan ku arkaynaa inuu listino yahay waa empty website hadaynu kan doorano waxa uu isagu inoo sameynayaa faylal iyo pageyo iyo folders template balse waqti xaadirkan waxaan doonaynaa inuu mid empty samaysano oo aynu gacanteena ku develop gareyno kadibna waxaan ku rafnaa okay marka uu sin noogu soo baxo waxaanu tagnaa halkan solution explorer-ka si aan ugu soo darsano web page cusub inaga oo siinayna right click kadib dooranaa add kadibna dooranaa add new item halkan ku soo dari karnaa web page cusub ama siinagoo tagayna website kadibna add new item dooranaa kadib waxaanu dooranaa web form kaasoo magaciisu yahay default.asp.exe oo macnaheedu extension-kan waxa ku muujinaya ASP.NET inuu yahay file-kan halkan waxaad ku aragtaa place code in a separate file tigtiguna saaran tahay kaasoo ah inuu page-kan iyo page-kii code-ka kala saaro si aynu aragno aynu add nidhaahno markuu hadaba sida noogu soo daro hadaynu tagno solution explorer-ka halkan waxaan ku aragnaa default.asp.exe oo ah kaynoo haynaya HTML codeski hadii aynu soo furno waxaad arkaysaa inuu ka sii hooseeyo kan oo ah code behind-kii waxaan arkaynaa markaa inuu noqday default.asp.exe oo macnaheedu luqadii ah sidaynu hadaba halkan ku aragno page-ka line-kan u sareeya ee inoo sheegaya luqadda iyo code behind-kiisa iyo inheritance-kiisa waxa la yiraahdaa isaga page director halkan HTML-keeni caadiga ayaa ku qoran sida bilmatalan doc type-kii oo kale iyo HTML-kii iyo head-kii oo run at server ah body-gii iyo form iyo div dhammaantood waxa ay code yaraysan markaa HTML-ka halkan waxaan soo dhigaynaa markaa message-keeni ugu horeeyay ee ASP.NET kaasoo aynu ku soo bandhignay website-keenan kaasoo aynu leenahay message-kan soo saar marka hadaba si aad u ran garayso ama si aad u soo display garayso website-kaaga halkan waxaad ka dooran kartaa browser-ka aad ku soo saarayso iminka waxa inoo dooran Google Chrome Firefox baad dooran kartaa Internet Explorer any browser kugu jira halkan ku soo taxaya marka kadib si aad ugu aragto qoraalkan browser-ka laba siyaabood waad samayn kartaa inaad halkan click siiso oo aad Chrome-ka ku aragto iyo inaad right click siiso oo aad tiraahdo view in browser baanu niraahdo view in browser marka walaal marka inuu soo saaray message-keeni ugu horeeyay ee aan ku soo qornay website-keenan ASP.NET ka xaggan waxaad ku aragtaa inuu isticmaalayo localhost iyo portiga macnaheedu ASP.NET kuma isticmaalo port ID sida web server-rada oo kale isagu random port uu iska qabsadaa halkan waxaad aragtaa file-ka uu akhriyo oo ah default.asp.exe oo ah page-keen ku soo darsanay marka isaguna sidoo kale ASP.NET waxa uu eegaa marka uu soo kacayo inuu ku jiro file magacan oo kale inuu ku jiro default.asp.exe ama se wuxuu eegaa index.asp.exe si uu ugu soo hor akhriyo uguna soo warbandhigo marka halkaas ayuu noogu joogay casharkeeni ee ku saabsanaa sida loo bilaabo ugu horreynta ASP.NET ka. Assalamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.